waxaan arkay adoo NDI maamulkeeda ku jira waxaan ogaa hawlihii badnaa ee aad qabatay oo aniga laftaydu aan qaar badan idin la qabtay oo dastuurkii markii qabiy qoraalkii la sameynayay gudiyadii sameynayay hawl badan iska saarteen tababaro badan qabanayseen hawlo badan baad ku jirteen marka waana garan karnaa meesha ay soo gaartay ilaa la doortay baarlamaanka ilaa meeshii u dambeysay inay la gaarteen aan weli inay NDI waxaan filayaa ay lug ku leedahay baarlamaanka la shaqayntiisii marka adoo NDI madaxii ugu sareeyay oo Soomaaliya ugu horeeyay xafiiskii aan ogeyn haysta oo aan ogahay dhaqaalaha fiicnaa mushaarka fiicnaa ilmahaaga noloshii waxaan ogahay inaad adigu istiqaaladii dhiibtay maxaa kugu qasbay inaad saas samayso والله هرتا NDI waxaan joogay muddo ku dhow 4 sanadood in aan istiqaalad dhiibana wax hal mar ugu dhashay ma ahayne muddo sanad iyo ka badanba waa soo jiitamaysay oo waan ka fikirayo waxyaalaha ugu waaweyn oo taas ii keenayna marka aad adiga niyadaada aaminsan tahay in wax qabadkaaga aad ka sii badin karto laakiin aad dareemaysa inay ku xiran tahay dad kale ama hay'ad ama siyaasad u degsan hay'ad xoogaa waxaa moodaa in aad u adag tahay si loo ogolaado marka anigoo aad u jecel inaan Soomaaliya ka shaqeeyo la shaqeeyo dadkii Soomaalida ahaayo intaas kulligood aan shaqada isku soo wada baranay kulligood ay ku wada jiraan khatar oo maaragtay ay la shaqeynayaan meel khatar ka shaqeynayaan inaan anigu ku dabagabado hay'ad caalami ah iyo siyaasadaheeda oo aan ii ogolayn inaan wadanka aan tago marka aan tago wadanka ay aad u qaab daran tahay in anigoo qof Soomaali ah xamar ku dhashay haddana niman cadaan iyo waardiye iyo ay daba taagan yihiin ama airportka aanan ka soo baxaynin ama baabuurta Amazon lagu qaado waxyaalahaas waa waxyaalo aan la qiwaayay waxa kale ka mid ahayd in badan waxaa jira shirar badan oo Soomaaliya gudaheeda ka dhaca oo ay ka mid yihiin coordination meetings oo hay'adaha iyo cid walba isugu imaato wada tashiye la sameeyo ma aanan tagi karin mar walba waa inaan fasax warsadaa Washington si markaas la igu soo ogolaado waqtiga la soo ogolaado waxa laga yaabaa in hawshiiba lagu kala tagay ama lagu kala tagay marka in aan wax la qaybsado dadka aan la shaqeynayo ayaan ka doorbiday oo aanan ku dabagaban ma aragtay حالاني iyo Amisom iyo hay'adaha caalamiga ah Soomaaliya habiba kala geeyay ka saariya wakan nabadgaliya wakan isku kale wakan